wafdi ballaaran oo hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa maanta lagu soo dhaweeyay magaalada Wajaale oo ku taalo xuduudda u dhaxaysa Soomaaliland iyo Itoobiya. wafdigaasi oo ka qayb galay caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa ku wehelinayay safarkan uu ku yimid Soomaaliland madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya wasiirro tiro badan oo ka tirsan dowlad deegaanka garaadada dhaqanka ee beelaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Faratoon oo wafdigaasi soo dhaweynayay ayaa waxa uu yiri madaxweyne ku-xigeen wasiirada madax dhaqameedka jaranka ciidamada martidina loo timi socodka aad baan ugu faraxsanahay safarkan loogu timaadeen waxaan u aragnaa u qaadanaynaa qadarin weyn inaad sharafteen inaad mataqaana ka soo ajiibteen codsiga iyaga inaad loo timaadaan aad baan ugu faraxsanahay aad baan u qiimeynaynaa waa mid inaga dhaxaysay oo waxaan u qaadanaynaa xiriir gaar ah iyo isqadarin gaar ah iyo walaalnimo gaar oo inaga dhaxaysa inay taas tahay madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa ka mahad celiyay soo dhaweyntan loo sameeyay wasiirka iyo wafdiga ballaaran iyo shacabka dhammaan waan ka mahad celinaynaa soo dhaweynta ballaaran ee la noo sameeyay waxaan aad ugu faraxsanahay inaan u socono hadda ka qaybgalka caleemasaarka madaxweynaha cusub Muuse Biixi insha Allah maanta iyo bariba waan joogaynaa Soomaaliland iyo Hargeysa waxayna muujinaysaa soo dhaweyntan iyo wafdigan anigoo matalaya madaxweynaha deegaanka Cabdi Maxamed Cumar iyo shacabkiisii wafdigan ballaaran ee ila socda waxay muujinaysaa xiriirka deegaanka iyo u dhaxeeya Soomaaliland waana sii xoojinaynaa insha Allah sidoo kale waxa iyaguna wafdigani soo dhaweeyay gudoomiye ku-xigeenka degmada Tog Wajaale iyo suldaanka guud ee gobolka Gabiley waqtiga xiriiriya waxaan halkan ku soo dhaweynaa wafdiga ballaaran ee madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka hogaaminayo ee madax dhaqameedkana uu hogaaminayo garaad Kulmiye garaad Maxamed maanta noo farxada hadaan nahay maamulka Wajaale inaan ku soo dhaweynay wafdi aad u heer sareeya oo uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mukhtaar Ibrahim Home Cable TV gobolka Gabiley